dambeeyay ee Gurceel maadaama magaaladan dagaal culculus ay marti gelisay iyo halka dagaalka uu ku xoogaystay iyo sida ay wax u jiraan dhimashada iyo dhaawaca la wariyay iyo wax waliba oo aad uga baahan tahay dagaaladii cuscuslaa ee Gurceel hadeertaan markaasi ka soconaya ayaan idinla wadaagi doonaa daqiiqada ka hor halkan waxaan live ka soo galay iyadoo xabadu ay si saa'id ah halkan uga socotay laakiin hadeertaan live keenan ayaad haddana xogo badan oo ka duwan kuwii hore aad ku daawan doontaa marka live-ka hal mar aynu wada share gareyno si saaxiibo fara badan oo live-ka u gaaro hal mar aynu live-ku wada share gareynaa si saaxiibo badan oo live-kan markaas u gaaro oo daawasho fiican u gaaro waayahay 800 ay haatan live-ka ku soo xirantay hal mar share gareeya waa ka hooyooyinkii ayaa markaas qaadkii iska gadanaya xaaladii ugu dambeeyay Gurceel ayaanu idinla wadaagi doonaa iyo jawiga magaalada sida uu yahay askar dawladda waayahay soo dhawaada ciidamada dawladda ayaa si toos ah ula wareegay magaaladan waxa ayna amnigeeda magaaladan ay sugayaan ciidanka dawladda waayahay goobaha ciidamada dawladda iyo ahlu sunna ay ku kala sugan yihiin ayaan sidoo kale live-kan idinkula wadaagi doonaa xaaladdu waa halis xilli waliba Gurceel dagaalku waa cuslaan karaa dhanka jaamacadaha waxaa laga maqlayaa daryanka hubka waaweyn ee labada dhinac ay isku adeegsanayaan xaaladda ayaana ah mid aad u cakiran dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaa Gurceel laga diiwaan galiyay maanta share gareeya dhammaantiin live-kan xogihii ugu dambeeyay uguna muhiimsanaa ayaad la socotaan haddii aad live-kan si toos ah u daawanayso Gurceel war kama rabtid oo wax allaala wixii macluumaad ah halkan ayaan kugula wadaagi doonaa waayahay saraakiil sarsare oo labada dhinac ayaa markaasi weli xabadda isku kulaylaya oo dhanka jaamacadda ayay xabaddu u badatay waayahay saaxiibayaal marka wararkii ugu dambeeyay ee live-kan ayaynu ku soo koobi doonaa marka share gareeya muuqaalka xilligu waa kulayl dadkii ayaanu isku soo baxbaxay oo bartamaha magaalada yimaaday inkastoo magaaladan ay tahay magaalo markaasi si weyn u martigelisay dagaallo culculus oo lagu hoobtay dhowr asbuuc ayaynu idinla wadaagaynay in magaaladan ay suuragal tahay inuu dagaal ka qarxo waxay salagleedaba saakay ayuu dagaallo culculus ay magaaladan ay martigelisay marka la eego ciidamada ahlu sunna ayaa saakay markaasi qabti ku dhacday waxaana markaasi ciidanku dawladda ka tirsan oo markaasi federaalka ka tirsan iyo kuwa galmudug oo isku dhinac ah ay isku fidiyeen dhammaan meelaha ugu muhiimsan ee magaalada Gurceel ciidanka dawladda ayaa magaalada ka soo galay dhowr jiho sida dhanka koonfureed waqooyiga iyo dhanka wadada aada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ciidanka dawladda ayaana markaasi waxa ay markaasi adeegsadeen hub asri ah iyadoo taasi ay keentay in ahlu sunna ay goobo badan oo ay ku sugnayd ay dib uga gurato sida aynu haatan wararka ku helayno isla markaana xogihii ugu dambeeyay ee Gurceel ay sheegayaan marka la eego magaalada jawigeeda laamiga waa uu degan yahay oo dadkii ayaa caadi isku dhex maraya walow wax waliba isbedeli karaan laakiin laga bilaabo Ceel Cali Faarax halka lagu magacaabo oo ah wadada markaasi aada Balambal ilaa iyo dhanka loo yaqaano jaamacadaha waxa ka soconaya dagaallo markaasi loo isku adeegsanayo hoobiyaal iyo markaasi suugag iyo qoryaha seekaawaha loo yaqaano ayaa markaasi loo isku adeegsanaya Sheekh Shaakir ayaa la inoo sheegayaa in uu ciidanka jaamacadda ku jira uu qayb ka yahay marka ahlu sunna waxay markaasi joogaan aaga jaamacadda halkaas ayaynu ku dagaalamayaan waana halkaasina waxaa laga maqlayaa madfac iyo markaasi hub waaweyn oo loo adeegsanayo ciidanka halkaas ku jira iyaguna kulay ahlu sunna waa iscaabinayaan oo halkaas ay ku dagaalamayaan ma jiraan wax markaasi baabuur gaadiid dagaal ah oo labada dhinac ay kala qabsadeen sida aynu ilaa iyo haatan xogta ku hayno laakiin waxaa jira qoryo fudud oo labada dhinac ay kala qabsadeen faktan koobaad ama qaybtan koobaad ee dagaalkan haatan ka qarxay saakay aroortii magaalada Gurceel ilaa iyo haatan oo saacadu ay ku beegan tahay markaasi 8 iyo bar ama 8 saac iyo 30 daqiiqo waxa is hor fadhiya ama dagaalka wali uu ka socdaa magaalada Gurceel waxaana qaybtan koobaad dagaalka guulo wax oolah ka soo hooyay
ciidanka dawladda iyo kuwa galmudug oo isgarbinaya oo markaasi hal dhinac ka wada dagaalamaya ciidan ka tirsan qaybta 7-aad gaar ahaan guutada 5aad ayaa la inoo sheegay in ay ka yimaadeen magaalada Matabaan si ay u xoojiyaan dagaalka ka soconaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ahlu sunna waxa ay ciidankeeda badankood ay geysay jaamacadaha halkaas ayayna xabado waaweyn markaasi ka ridaysaa oo ay markaasi ka dagaalamaysaa halka ciidanka dawladdana ay hareeraha ku mashquulsan yihiin sidii ay hareeraha uga mari lahaayeen ciidanka jaamacadda markaasi ku jira waxaa jira khasaaro kala duwan oo labada dhinac soo gaaray inta la xaqiijiyay ilaa iyo ciidan ku dhow markaasi 30 askari ayaa labada dhinac ka kala dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay dhaawacu waxaa la soo sheegayaa in markaasi isbitaalada lagu daadguraynayo waxaana dhaawaca lagu qiyaasayaa ilaa iyo inuu intaasi ka badan karo inkastoo la sheegayo in guryo badan oo magaalada ku yaallana ay markaasi gubteen walow markii dambe dadka deegaanka ay markaasi isku dayeen inay guryahaasi damiyaan oo ay markaasi ka qayb qaateen sidii guryahaasi loo damin lahaa oo dabka ka dhashay korontada magaalada ayaa gabi ahaanba la jaray internetka iyo markaasi iyo lambarka hurmuudka ayaa markaasi isna halkan ciriiri ku ah balse inagu waxaan isticmaalaynaa internet cable ah oo aynu markaasi live-kan iyo tibinteena tooska ah idinkaga soo baahinaynaa saaxiibayaal marka jawigii magaalada ayaa noocaas ah waana magaalada lagu kala cararay cabsidii ugu badneed ayaana hadda jirta maadaama ay suuragal tahay in ahlu sunna ay dhaqdhaqaaq sameeydo isla markaana ay markaasi weerar aan loo kala harin ay soo qaado ahlu sunna lama ogaan karo xilliga ay si toos ah u quusan karto waa niman markaasi si gaar ah u yaqaana xeeladda dagaalka 5 daqiiqo ee ugu dambayda waa suuragal in ahlu sunna soo noolaato balse haddeertaan waxaad moodaa in ahlu sunna markaasi looga gacan roon yahay haddeertaan dagaalkii ka dhacay Guriceel ciidamada dawladda ayaa shacabka magaalada u sheegay in wax dagaal kale uusan jirin isla markaana xaaladdu ay dejiyaan guryahoodana ay aadaan ilaa xaaladdu ay dhinac u dhacayso ciidamada dawladda ee markaasi saldhigga la wareegay waa ciidan huwan ah guutada 15aad ayaa howlgalladan si weyn loogu ammaanayaa siba taliyaha guutadaasi General Mas'uud Maxamed Warsame waxa uu qayb weyn ka qaatay in Guriceel uu markaasi gacanta galmudug soo geliyo waa taliye u dhiifoon isla markaana fahansan xeeladaha dagaalka iyo dhinac waliba oo ay wax ka xigi karaan ciidanka gorgor ayaa iyaguna sidoo kale kaalin lixaad leh ka qaatay dagaalkan haramcad sidoo kale kaalin aan la ilaabi karin ayay dagaalkan ka qaateen iyo dhammaan qaybta 12aad dagaalkan uma aysan kala harin ciidan nabad sugidda ka tirsan Soomaaliya ayaa dagaalkan ku jiray marka dhinac walba eegto waxaad arkaysaa ciidankii dawladda oo magaalada markaasi iyo dadkii dawladda markaasi marka la fiirsho dadka shacabka ah ee magaalada ku sugan iyo ciidanka dawladda ka tirsan waxaaba fara badan ba ciidanka dawladda markaasi ka tirsan oo markaasi magaalada gabi ahaanba la wareegay waayahay xogihii ugu dambeeyay ayaynu markaasi idinla socodsiin doonaa iyo xaaladdu sida ay tahay iyo sida ay wax isku bedeli karaan halkan waa bartamihii magaalada Guriceel waxa aynu ilaa aan gaari doonaa saldhiggii sida weyn loogu dagaalamay maanta oo markaasi khasaaro fara badan oo ka dhashay xaafadaha magaalada aynu sidoo kale haday suuragal inoo noqoto inkastoo xilli qorraxdu ay si xun markaasi u jirto aynu soconno haddana waxaynu isku dayaynaa saaxiibada live-kan daawanaya in aynu xushmeeyno oo markaasi meelaha ugu macquulsan aynu geyno si ay u kala arkaan magaalada iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Guriceel oo haawanaysay maalmihii la soo dhaafay ayaa saakay waxa ay martigelisay dagaallo culculus meelaha qaar waxaad arkaysaa in markaasi uu saameeyay daryanka rasaastii waaweyneed ee labada dhinac ay isku adeegsadeen waxaad moodaa in ilaahayba uu dhibkii fududeeyay dadku badanna waxay leeyihiin Guriceel laamiga dagaal saan u fudud inuu ka dhacaa lama moodeen bay leeyihiin inkastoo dagaalkii halkan ka dhacay oo markaasi ahaa mid khasaaro fara badan geystay isla markaana ciidamada dawladda ay kula wareegeen inta badan goobaha ugu muhiimsan magaalada Guriceel walow ahlu sunna ay iyaduna joogto dhanka jaamacadda oo ay halkaasi ka dagaalamayso Guriceel ayaad markaasi tibinteena tooska ah ugala socotaan dhalinyarada magaalada ayaa hayn meel u taagan waxa ayna markaasi xilli waliba dhalinyaradu ay isku sheegayaan xogihii ugu dambeeyay ee magaalada iyo sida ay xaaladu tahay muuqaalkan saaxiibayaal share gareeya si uu u gaaro saaxiibo fara badan
waa kuwa baabuurkaas aad u jeediin waa baabuurka waaweyn weliba nooca dawladda ayaa wadata saldhigga ayuuna haatan ku sii socdaa sida aad u jeedi kartiinba waayahay gaadiid dagaal iyo hub aad u fara badan ayay ciidamada dawladda meel waliba daadiyeen marka saaxiibayaal layfka aynu wada sheer garayno si uu u gaaro saaxiibo fara badan halkan daqiiqado ka hor laguma dhiiran karin in la soo istaago waayo xabaddii ugu cuslayd ayaa ka socotay hadeertaanse waata dadka sidaas ay u dhooban yihiin waayahay saaxiibo badan ayaa layfkan sheer garaynayaan u jeeda waa waray waa ay bilaabo rabtaa miya xagee ka socotaa waa jaamacadda xabadahaas dhanka jaamacadda ayay weli ka socotaa waayahay sheergareeya layfka sheergareeya layfka si uu u gaaro markaasi saaxiibo fara badan oo markaasi uga qayb qaataa inay magaalada ka warqabaan beejkana layg iyo follow dhahda si aad ula socotaan wararkii ugu dambeeyay ee magaalada waxaan la joogaa maxamed iyo cabdulaahi bootaan oo ka mid ah ragga magaalada u shidan tahay cabdulaahi bal soo dhawow xaaladda magaalada hadeertaan tafaasiil inaga sii magaalada hadeertaan xaalkeedu waa degan yahay inkastoo weli dagaal ka socdo dhanka jaamacadda xaggeeda weli dagaal ka socdaa dadkiina hadda marka magaalada dhexdeeda soo wareegayaan xaalka hadda waa degan dagaalku waa socdaa si fiican waayahay meelaha aad inoo sheegi kartid oo ay dawladda la wareegtay waa meelahee dhammaanba hadda inta magaalada qaybaheeda kala duwan waa la wareegtay si fiican saldhigga hadda yaa ku sugan saldhigga kala dawladda joogta dhammaanba qaybaha dhan dawladda ayaa joogta waayahay ahlu sunna ma la dhihi karaa waxay ku aruurtay dhanka jaamacadda oo ay awooddooda isugu geyday difaacyadii weli ay jirtay u badan tahay hadda inay joogaan waa halka dagaalku weli ka socdo halkaas u badan yahay weli dagaal ka socdo waayahay xaaladdu marka hadeertaan maxaa la filan karaa xaaladdu weli waa xilli xaalad dagaal waaye weli waxa u badan la filan karaa in dagaalku soo ragal celiyo waa la filan karaa inuu sidaan jarmana waa la filan karaa wax walba waayahay waa mahadsan yahay ciidanka dawladda ayaa markaasi meel waliba magaalada jooga oo markaasi diyaar ku ah waxayna ciidanku dhammaan markaasi ay isku fidiyeen qaybaha kala duwan ee magaalada ama meelaha ugu muhiimsan ee magaalada waxaadna moodaa in xaaladdu markaasi ay haatan laga yaabo in ay sii kacdo maadaama ciidanka ahlu sunna ay suuragal tahay inay laba kacleeyaan xilli ay ku sugan yihiin jaamacadda oo ay halkaasi awooddoodii isugu geeyeen halkan waxaa si weyn ugu dagaalamay ciidanka ahlu sunna sida aad u jeediin halkaas idiin muuqanaya waa saldhigga magaalada Guriceel ciidamada dawladda ka tirsan ayaa ku sugan sida aynu xogta ku hayno oo markaasi daqiiqado ka hor gacan ku haynta saldhigga la wareegay waayahay lifekan sheer gareeya beejkan wariye cabduqaadir siisiina follow dhaha si aad ula socotaan wararkii ugu dambeeyay ee galmudug iyo caalamka oo dhan waayahay dadka dhan waxay leeyihiin in dawladda haysato ayaa markaasi magaalada ka muuqato waxaana magaalada gabi ahaanba markaasi ku sugan dad aad u fara badan oo magaalada ku soo noqonaya saaxiibayaal bal aragtidiinnu maxay tahay Guriceel ma filaysaan in sidaan fudud markaasi lagu kala bixi karo oo ciidamada dawladda ay ula wareegi karaan qaabkan fudeedka ah inkastoo dagaallo culus oo lagu hoobtay ay halkan ka dhaceen xaaladda ayaa ah meel aad u kacsan goobaha qaar ee ganacsi ayaa gubtay sida la inoo sheegay oo markaasi gubtay goobo badan oo gubtay fiilooyinkan waa korontadii sida u jeediin waa ay daateen dhulkay ku daateen maadaama waayahay waa ay xoogaysatay saldhigga dhankiisay hadda ka bilaabatay xaaladdu ma qurxoono saaxiibayaal mar kale ayay bilaabatay dagaal ayaa mar kale qarxay waayahay xaaladdu ma qurxoono waayahay saaxiibayaal xaaladdu ma qurxoono waayahay waa live toos ayaad ula socotaan kala cararkan meel korkanaga ayay xabaddu ka bilaabatay
waayahay xagee lagu waday ma dhaawac culus soo gaaray ma dhaawac hadda ahaa cabdibilaal saar hadda xabaddan xagee ka dhacaysaa ceelka sokadiisa ceel abshir waayahay lama geli karo aagan xaaladdu waa kaa waa miif leedahay baasho waayahay waa miif leedahay saaxiibayaal waa halis laguma soco karo waa ay miif leedahay ilaahay hana badbaadsho waa ay miif leedahay saaxiibayaal bisinko caadigiina kaas ugu dhacday waayahay sheergareeya dhammaan muuqaalka sheergareeya waa ay miif leedahay saaxiibayaal sheergareeya waa ay miif leedahay saldhiggii ayaa mar kale la isku haystaa waayahay waraa halkaasi ku dhacday ma arkeedi caadiinoo kor martay ma arkeedi warjoog kaala cuni waal masalada ma orta ka bal waayahay saaxiibayaal waa miif leedahay halis waaye xaaladdu halis waaye lama oga xabaddan meelay ka dhacayso laakiin aad ay markaasi dareen ka rasaas hay maxaa maqlaysaa indhahaga maxaa ku arkaysaa layfaa ku jirtaa si toosaa lagu daawanayaa haa bal ka warran xaaladda magaalada jawgeeda waayahay waa ay mahadsan tahay waa ay miif leedahay haddeertaan waxay maraysaa xabaddu meesha ugu xumeed abid sababtoo ah xaaladdu ma fiicno korkeenna ayay markaasi aad uga kor dhacday laakiin ilaaha naga badbaadishay waayahay wiilkan wuxuu gacanta ku hayaa saandhe wuxuu gacanta ku hayaa sidaa u jeedin saaxiibayaal fooqaq badan oo la isku isticmaalay meeshan hore ayuu dabcan ka soo aruuriyey fooqaqan dhammaantood waa la isku isticmaalay waa halis jawiga magaalada xaaladdu haddayse sidaan ay ku sii socoto waxaa suuragal ah in mar kale uu qarxo dagaallo culculus oo lagu hoobto waayahay dhammaan sheergareeya muuqaalkan halis ayaynu ku jirnaa mid ka mid ah xaafadaha magaalada ayaynu ku sugannahay maadaama bartamihii laamiga la isku qabsaday waayahay waayahay dadka qaar aa dhahoyo anigii layfka daawanayaan babaqay oo gambaday marka waa mas-uuliyaddan ina saaran in aynu saaxiibadan la wadaagno wararka iyo warbixinnada gulceel ka soo yeeraya sheergareeya marka muuqaalka waayahay haddeertaan waxay maraysaa xaaladdu meeshii ugu dambeeyey waayahay layfka waxaa waaye waa ka sii baxaynaa si xogaha aynu markaasi idinkaga dabageyno oo qormooyin idinkugu baahinno maadaama labada dhinac ay isku soo dhowaynayaan saldhiggana haatan ay ka socoto xabaddii ugu badneed abid marka sheergareeya muuqaalka saaxiibayaal